سيدنا محمد waxaan halkan maanta aan dhagax dhigiisii aanu dhignay mashruuca dhaqan celinta Soomaaliyeed gaar ahaan Jubbaland kaasoo ugu talagalay in dhalinyaradan la khalday sidii loogu dhaqan celin lahaa hoy iyo waxbarasho iyo caafimaadna ay u heli lahaayeen kadibna ay ummadooda wax la qaybsadaan iyo horumarka wadankooda waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan international community-ga iyo donoriska gaar ahaan dawladda Jarmalka oo runtii gacan ka geystay mashruucan inuu hirgalo iyo hay'adaha caalamiga oo kale barnaamijkan wuxuu noqon doonaa mid socon doona kulli ilaa in muddo dhismihiisa ugu horeeyay hadda wixii ka dambeeyana tababarkiisii iyo waxbarashadiisii iyo way socon doonaan sida arkaysa maanta wuxuu dhagax dhigay xarunta dhaqan celinta Jubbaland oo qayb ka mid ah barnaamijka dhaqan celinta Soomaaliyeed waxaa sharaf noo ah in mar dhow ay halkaan ka dhici doonto howlo badan oo dhalinyar badan oo la maran habaabiyay oo lagu toosin doono oo dibna loogu celin doono reerahoodii iyo inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkeena burburay sida la socotaan dhowr jeer ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda uu bixiyay cafisyo la cafinay dhalinyartan qofkii soo dhiibayo cafisyadaasna wali way jiraan inay isu soo dhiibaan Jubbaland ama maaragtay hay'adaha kaleeto amniga ee ka howlgalo sidoo kaleeto sida aad arkaysaan maanta halkan ayaa la dhagax dhigay xarunta Kismaayo waxaana ugu baaqaynaa dhalinyartan la maran habaabiyay inay isu soo dhiibaan ee ka soo baxaan dhibaatadan iyo rafaadka ay ku jiraan iyo geedaha ay ku jiraan waxa ay dilayaan waa dadkoodii hooyooyinkoodii walaalahoodii bay dilayaan inay ka mid noqdaan bulshada inay ka mid noqdaan dib u dhiska gobolkan Jubba iyo Soomaalida kaleeto